كمل شيء مسكح معها عودي مرداي عودي يركي والله وأوها عودي ما أوها مرداي كاني وأبا محمد عبد النور حسين وبرها بالشدة قبصة مالمه يقدم بيي kadib markii ay waxyeelo u geysteen gabadhiisa ilmaheeda iyo ninkii qabay hadda waxa uu dareemayaa xanuun daran kaasoo uu xitaa habeenada qaar la seexanin bir madaxa looga daqray awgeed iyo jug kale oo ay gaarsiiyeen gabadhiisa iyo ninkii qabay waa 85 sano jir ay jidka ku soo tuurtay gabadhiisa waa curyaan loo geystay wax uusan mudnayn waa aabbe xilligan u baahnaa inuu helo diirnax balse hashii gabar ee ifka u joogtay ay maanta sidaasi ula dhaqantay ehelada iyo jaarka qoyskan ku nool magaalada Kismaayo ayaa qiray in aabahan si joogto ah dhibaatadan uu hore ula soo kulmi jiray waxaana gacanka hadalka uu daqarka aabahan ku soo gaaray uu ka bilowday markii uu diiday in gabadhiisa iyo ninkii qabay ay ka qaataan lacaga sadaqa ah oo isaga oo guurguuranaya magaalada uu ka soo aruursaday ciidamada ammaanka ee magaalada Kismaayo ayaa xiray labadii qof ee dhibaatada aabahan u geystay balse isaga oo banaan jiif ah ayaa dadka Soomaaliyeed ka codsaday inay ciilka ka saaraan una soo gurmadaan ماي وحواي محمد عبد النور حسين واي قبرت انا عندلي اي وسوى سيليان لو دخلك وسيغا يدلي برس يودو بر بس واي داف دخلك ديك اي وحي واي ودي ورنا ولا توري واي دلي وراي دلي مالنا ساسا يودع المهي وهذا ماذا ماشان كسماي كودا ماذا جزاء بكت ولا يهرت انا يقرقارت مال ربنا ما يقرقار هذا برسك خالد جيري وهو البوكسوب جيري وهو خبي جيري شو منك وكخالد جيري هور ما نول واذا هرتي كوري برا وخالد جيري واسار سجيري هذا بريسانا يجي دخل كان يولي المهدي ووينا يوشو توفس ايضا ويوشو توفس بس دهر كان اللي ودا وهي دلمة واخباورت حد واللي تدروها يا هذا الدور ما اللي وهاي كمل شيء مسكح معها عودي مرداي عودي يركي والله وأوها عودي ما أوها مرداي شركة على ما يكاجي لحومها حبت سوى كشوع مكاسو دكتاهله خورتا ما يقدودي كان دي والله حبا ما يقدودي سومالي ده أنني قرقار إلكا ليا سارو aabahan waxaan u soo sameynay lambaradaas oo ay magaciisa ku qoran yihiin waa idahab EVC Plus iyo Somnet dabcan waxaan rajaynaynaa gurmadka inaad ku soo gaarsiisaan oo wayeelka noloshiisa wax ka bedelno ciilka aan ka saarno isla markaana aan tusino in uu leeyahay gabdho iyo wiilal Soomaaliyeed oo ka wanaagsan kuwa dhibaateeyay waa mahadsantiin